ونو مهدنقيا مدحوينها جمهورية سوماليلاند موسى بيحي عبدي وحفلتنا شرفت له inoo soo qaban qaabiyay waxa kaloo salaamayaa shirgudoonada labada gole waxa kaloo salaamayaa oo u ducaynaya isagana madaxweynihii hore Axmed Maxamuud Siiraanyo hadda inaga baxay oo caafimaad iyo cimri dheer Ilaahay uga baryayo waxaan salaamayaa madaxda kale ee meesha joogta ama qoorweynta ama haldoorkii Soomaaliland halkan isugu yimid rag iyo dumar bale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa weeye maanta waa mid farxadeed weeye annagu ragii markaa lixdankii markii xorriyadda la qaatay iskuulkii horreeyaa dhameeyey elementaryga imtixaankii intraniska la odhan jiray baan mugallay waxaa yidhi maaster noo ahaa la u naxariistay xasan cali hederi imtixaankana waxaa naga qaaday xasan cali cawaale natiijadii baa noo soo baxday markaa annagoo sugayna inuu Axmed Guray gallo ayaa calanka la saaray labadii munaasabadoodba waan joogay garoonka markii calanka lagu la dejiray calankii Ingiriiska oo garoonka iskuulku lahaa bay ahayd hadda waa halkan masaajidkan Ibraahim ka dhisan yahay iskuulka iyaga lahaa habeenkii beerta xorriyaddana waan joogay ayaamaha ku horeysay ayaa dadkii madaxdii xisbigii SNL ku jirtay ayaa caruurtoodii loo yeeray waxa loogu yeeray xaruntii xisbiga shaah iyo keeg iyo sharaab baa la siiyay waxa noo khudbadeeyay markaa gudoomiyaha xisbiga ahaa chairmanka xisbiga secretary general xisbiga ahaa Maxamed Ibrahim Cigaal oo nagu yiri mustaqbalkiini ayaanu dhisaynaa annagu waa sii soconnaa idinka u dhaxali doona idinka u hagi doona waxaan xusuusiyay 2003 ayaa dawli waan sugaya dhaxalkii maantana waa ka aynigeygii raggii dhaxalka sugayay waxaa igala mid ahaa madaxweynaha maanta jooga Muuse Biixi Cabdi dee dhaxalkii waa nagaa gaadhnay da'dayadii waxa weeye abwaankii Qaasim ayaa 1960gii wuxuu tiriyay gabaygaasi wuxuu ahaa geediga la labay meel fog baa loogu leeyahay guriga Soomaaliland lagu furo ayay gibishu saaraan geedigaas baa la soo kala dhaxlayay geedigaas waa kii xamarina geeyay waa kii aynu ka soo noqonnay geedigana maanta hoggaankiisa waxa ay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Ilaahay kugu galaday inaad geediga maanta hoggaankiisa hayso annaguna aan ku garab taagnaano oo qalqalooca kala ilaalino faarax nuur baa isna murtidaas oo ahaa qalqalooca geediga idin qadaacaya markaa mudane madaxweyne waan ku wareer taaganahay waan ku barbar soconaa qalqaloocu man ku ilaalinaa geediga ee hoggaanka kugu haysano Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in geediga Ilaahay ugu guuleeyo guriga samihii uu saadaaliyay abwaankii weynaa Qaasimna ama adiga ama madaxweynayaasha ka dambeeya Ilaahay ku guuleeyo kuwii gaarsiiya guriga samaha aynu rajaynayno madaxweyne maanta mandaqada waxa weyn baa ka socda arrintu inaga way ina dhaaftay inta inaga isu baacinayno muxaarifid iyo mucaarad ahay way ina dhaaftay mandaqadii duulaan baa lagu soo yahay waa loo soo biyeystay yamyam iyo qadaad weyn baa u soo ciyaar guday haddaynaan tala midaysan iyo isku duubnaan iyo ismaqal kaga gudbina khatar baynu ku jiraa maanta waa ogtihiin oo dalkii weynaa dariskeena ahaa aynu dhabarka saaray aynu lahayn waa xuduudda idiin fayow waxa ka socda maanta waa ogtihiin iyaga naftoodii baa duulaan lagu yahay mandaqadii Carbeed kuleelkeedii bayna soo gaadhay nin waliba mandaqadan guri baa ka haya waxaanu kaga bixi karaa inagoo sufuufteena isu garbahaysa saara oo silman ilaahna oo talada wadaagna oo wixii aanu kugu kordhin karnaa aanu kugu kordhino wixii aad naga rabto ee leedahay war waxaasa maanta igu daranay ila qabtana aanu kula qabanno Soomaaliland way guuleysanaysaa loo baqan maayo
dadka waxaa laga yaabaa intaan siyaasadda la soconi isjiidjiidka iyaga in moodaya in la kala tegi maayo tan waa la wada ilaashanayaa ninna ka yeeli mayno in dalkan iyo dadkan khatar geliyo nin aan ugu dul qaadanaynaa ma jiro aan isku khilaafna siyaasadda laakiinse mandaqadda nabadgelyadeeda iyo mustaqbalka carruurteenna nin aanu ka oggolaanayno hadduu halkan joogo iyo hadduu dabad joogaba inuu khatar geliyo cod dheerra waanu ku dhawaaqaynaa ninna kama aqbalayno taa gudaheennana waa wax caadiya yaan la moodin inuu kala tegayo baytalqasiidkeennu waxa weeye waar somalilan waynu wada leenahay waanana wada ilaalinaynaa kii xumaynayana waynu ka qabanaynaa